dadku malaha gobolka cagaaran baa haystaan meel biyo fadhiyaan waxa ku jirta Gabiley kaalada iyana laftigeedu de magaalada biyaha siisa oo iyada lafteeda cabatina badan naga soo gaareen waxa loogu talagalay inuu qaado ilaa 6,000 oo foosto. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Marreexaan oo weheliyo wasiirka wasaaradda tiknoolajiyadda Sheekh Cabdilaahi Suufi Jibriil iyo madaxda wakaaladda biyaha gobolka Gabiley ayaa si wadajir ah u soo kormeeray eelasha biyaha ee magaalada Gabiley iyo walibana kaydka biyaha oo dhismihiisu socdo halkaas oo ay ka hadleen ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxa weeyaan wax loogu talagalay maadaama magaalada Gabiley ay weynaatay kaydkeedu mid aad u yar yahay waxa loogu talagalay inuu qaado ilaa 6,000 oo foosto barkad kaydkii Gabiley kaasoo wasaaraddu aymiga gacanta ku hayso gabagabana ah kulli wax walba oo taariikhda qorta oo taariikh umba laga tagayo hebeladu way socdaanoo xilkuna waa wareegto waxaan halkan nimid inaan u kurgalno mashaariicda wasaaradda ku fulinayso gobolka inaan bal aragno iyo sidoo kale si guud ba maadaama xilliyaha lagu jiro roobkana yar yihiin magaaladan kale muddo dheer ay biyo yaraan cabashay jirtay qaabka wax u socdaan kulay warbixintii aan dhageysanay wasiir Saalax sheegay inta aad joogtay waxa badan baad ka qabateen halka ka sii wada baahidina kale mar walba jirtaa dadku malaha gobolka cagaaran baa haystaan meel biyo fadhiyaan waxa ku jirta Gabiley meelaha ugu biyaha yar leh marka la eego wadanka saan u soo eegno mashaariicda ka socota biyaha iyo guud ahaanba xaaladda biyo ee gobolka mashaariicdan ay kamid yihiin kaydka biyaha imka aynu ag taaganahay oo ah kaydkii biyaha Gabiley siin lahaa oo ay wasaaraddu wado imkana dhamaaday oo gabagaba ah oo laga yaabo de maalmaha soo socda in isagana laga shaqaysiin doono hadii la ka dhigo waxaan kala soo eegi doonaa kayd ceelasha botoro imka iyana 4 kilomitir inoo jira wakaaladda iyana laftigeedu de magaalada biyaha siisa oo iyada lafteeda cabatina badan naga soo gaareen waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley.